Assalaamu calaykum ma u baahan tahay inaad samaysatid malabaxaan oo kaleeto jawaabtaada hadday tahay haa fadlan isoo raac oo aragsa u sameeye waxaa loo baahan yahay inaad haysatid 2 xabo oo kuna basal cad kabsar basbaas basal caleen barbarooni toon oo yacni si fiican u soo yareysid toonta soo xoqotid inta kaleetana soo yareysatid sidoo kaleeto yaanyada haysatid waa isticmaali kartaa sidoo kaleeto waxaa loo baahan yahay haysatid xoogaa yar oo cusbo ah mise maraq digaag karabtida isticmaali kartaa haatana waxaa ku soo darsanayaa alaabadii aan soo jarjartay si yar u soo jarjartay soo waxaa la rabaa maadaama malabax lagu dubayo inaa zaid u yareysid haddii kaleeto wax waaweyn dadka ma cuni karaan hadeertana maxaa la rabaa inaad isdhex gelisid sorry guys markii aan aniga video soo gelinayo markastaba ilaahay amarkiis ma aqaan waxbaan ka tagaa laakiin maanta ma doonayo inaan waxba ka tagtago ma fahmaysaan soo dadka waxay igu eedeeyaan markasto si fiican dadka wax ma u fahansiisid anigana yacni run waaye sida yacni caadiga wax u sheega ma fahmaysaa marka laakiin maanta insha Allah si fiican ay wax idin fahansiin doonaa si fiican ay isku soo dhaxgaliye waa u jeedin xumbada marka halkaas kaga gudbeynaa inta waxaa la rabaa inaad ku haysatid baaquli mise weel adiga sidoo kaleeto bakeeri bur ah bakeeriga burka ayaa weelka ku shubanaysaa bakeerigaas caan waaye soo maaha hal bakeeri soo hadaa iskaabulo tahay hal bakeeri baa kugu filan haddii dad badan aad tahayna inta yacni kugu filan waa taqaanaa soo maaha sidoo kaleeto galaas iyo bar caano ah haddaa rabtid biyo waa ku qasan kartaa laakiin ani caanaha ku qasanayaa soo si fiican inaad isku dhexgelisid waaye ma fahmaysaa ani si fiican aan isku soo dhexgelinayaa marka isku soo noqonaynaa sida yacni malabaxa loo qaso qofka suu yaqaana ha adkeenin hana jircinin yacni si macquula inaad u qastid waaye ma fahmaysaa yacni inta kugu filan adigaba waa dareemi kartaa si fiican aan isku soo dhexgelinayaa aniga oo kaaliskaaga qurux badan maasha Allah waa kaas sidana isku soo dhexgeliye maxaa la dhahayaa hadana alaabtii aan soo diyaarsaday ma taqaanaan baa ku soo duldhigayaa ku soo duldarsanayaa marka waa kaas maasha Allah saas ugu soo darsanayaa kadib waxaan sameynayaa qaadadan dhexgelinayaa waan dhex marinayaa mise waan walaaqayaa soo u taqaanaan si fiican ayaa rabaa inaan isku dhexgeliyo oo yacni si khatar ma la rabo in mataqaanaa si fiican isku dhexgelinin si fiican isku dhexgashaa la rabaa si fiican aad isku dhexgelinaysaa oo yacni inay laabta ka gashaa la rabaa kal iyo laab ma fahmaysaa haddaa maqli jirtay yacni inaad si fiican isku dhexgelisid waa aad si fiican u walaaqdid markaas kadibna waxaad samayn doontid aniga kuu sheegayo hadduu ilaahay idmo maasha Allah haddana weli waa isdhexgelinayaa saas ayaa isugu garaacaysaa kadib aniga waxaa sameynayaa hadduu ilaahay idmo birtii ayaan dabka saartay xoogaha subag mise butter ayaan birtii dul dhigay ama ku shubay kadib qaado ayaan soo darsaday mise fur waxay haysatay ayaa soo darsanaysaa waa ku kor shubaysaa birta ma fahmaysaa kadib birta dhan ayaa isgaarsiinaysaa saan oo kaleeto kadib butterkii ayaan dul dhigay mise subagii ayaan kor kaga shubay markii yacni hoos ay kasoo guduudato waa la gedinayaa ma fahmaysaa saan camal maasha Allah gadaasheeda saan waaye qurux doolsho camal oo u jeedin samaaha soo maxaa sameynayaa haddana xoogaa yar oo waxaan dul dhigayaa oo jiis ah oo aan soo xogay markii aad aragtid jiiska inuu yacni sii degayo dibcayo ma fahmaysaa dhalaalayo waxaa sameynaysaa waa ku soo laabaysaa malabixisaan ay u soo laabaysaa si qurux badan buu kuu noqonayaa weliba si fiican ayaa la rabaa inaad kor iyo hoos bisee guduudisid baalka maasha Allah waa ujeedan si ku soo baxayso maaha kal iyo laab waa lagama sheekeyn karo dee maasha Allah marka waxaa sameynaynaa hadeertaana ayaa ka soo qaadaynaa dabka kadib waa ujeedan siduu yahay jileec baan ku yiri kaaliska arag fahmaysaa maasha Allah dhadhankiisuna waa wallaahi lagama sheekeyn karo waa kal iyo laab oo aad iyo aad buu u macaan yahay
saa u jeediin buu ku soo baxay oo quruxda badan oo guduudka badan oo jileeca ah iskaabulada yacni waa wax fudud way samaysan karaan sidoo kaleeto caruurtana way ka heli doonaan ayagana caruurtana way jeclaan doonaan sidoo kaleeto odayaasha xaajiyaasha naagayaasha nimayaasha heestaanna u fiican yahay quraacay uga dhigi karaan casho fudud way noqon kartaa afur way noqon kartaa bedelka sambuuska gelin kartaa markaa laga faa'iideysta dhammaantiin waxaa idin leeyahay salaamu calaykum